السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا شرفتا يا ماموس كمدن كسو دوادا كنال كينا عافيماتك إدريالك عافيماتك وقت وعني نرى الفعنا وينين رجينينا وحنو كسو قادن دونا كليب كان قاب دبيعية ولولا دعالو حنو كان ليها جاستريغا كليب كان كليب كهورية وحنو كاقا هذا اللي وحيابها كعين كرا يادو قريقا جوغا اما هوم ريميركات سمينيسو إلا لغاية تحاتري كرو haddaba imika waxaanu ku soo qaadan doonaa qaabka loola dacaalo guriga adoo jooga oo markaa qofku intaanu dhakhtar u tagin ama aanu markaas meel kale marin uu isticmaali karo ee guriga u taala ama guryaha uu ka heli karo ayaynu inta badan isku sheegnaa waana waxa ugu fiican ee home remedy ahaan loo sameeyo talooyinka caafimaadka iyo qofku waxa uu gurigiisa ka helayo isku dabiibayo intuba waa mid ganaalkeenu xoog ka saaro waana runtii taynu aasaasanay waxyaabaha dabcan dawooyinka kale qofka dhakhtar waynu kula talinaynaa waana muhiim dhakhtarku waana runtii xilli kasta iyo waqti kastaba aynu doonayno in dadku si dhab isku daweeyaan oo qofku xanuunka aanu qarsan waxaad qarsataaba Soomaalidu waxay tiraahdaa way ku qarsadaan laakiin waxyaabaha laga maarmaanka waxa kamida aynu doonayno inaynu isxasuusino mararka qaar baa laga yaabaa dawo ku dhow inaanad adigu dhaaday marka waa muhiim dadka qofku inuu waraysto manaajta iyo kanaalada caafimaadka iyo goobaha cilmiyada caafimaadku ay ka baxayaan qofku kaaga dhawaado xataa adigan xanuunsanayn inaad kaaga dhawaato waa muhiim waayo qof kale ayaad uga faa'iideyn kartaa waad u sheegi kartaa waliba mid qura inaad ku xidhnaato maaha meelo kala duwan si markaa sourcesku uu kugu bato aad ka helaysa cilmiga meelo kala duwan inaad ka qaadato tijaabooyinka caafimaad ee la sameynayo oo aan meel qura xooga saarin si markaas ay wixii wax ay u ahaadaan fruitful ah oo midhadhala xanuunkii ay iskaga daweyso haddaba qaabo badan oo loola tacaala ayaa jira gastriga waxa ka qofku inuu ka fogaado dhammaan waxyaabaha ku kicinayo oo dhan waanu ka xusnay qaar kamida qudaarta oo runtii ay kamid yihiin liimuhu oo qofka salaada hore liinta oo kale hadduu aad u isticmaalo inay gaaska ku kicin karto tufaax oo kale aynu tilmaamnay hadduu qofku habeenkii ku seexdo tufaax fara badan oo juice culus aynu ku kicin karo hadduu gaas leeyahay muuska oo kale isaguna sidoo kale hadduu muusku yahay muus aan fresh yahay habeenkiina uu ku seexdo inuu dhibaato ka dareemi karo laabjeexa arimahaas in ay ka qayb qaataan kicitaankooda ayaa muhiim haddaba aynu ku soo dhawaano ama aynu u nimaadno qaabka loo dabiibo adoo gurigaaga jooga qodobkaynu imika u baahanay qodobo kale ayaa jiri doono gurigaadoo jooga aad ku dabiibi karto oo xilliyo kale iyo waqtiyo kale ayaynu ka hadli doonaa kanu soo qaadanaynaa maanta waxa weeyaan waa qudaartan midhaha ee runtii inoo saaran shaashadeen ee la yiraahdo xulbada faragri waa xulbada ayaa tumaysa waa ridqaysa marka way jirtaan kuwa sidooda midhahan waa iyo kuwa ridqaniba qofku markaas biyo caadiya ayuu ku isticmaalayaa ayuu ku cabayaa subaxii faa'iidooyin kale oo waaweyn bay leedahay tamarta qofka iyo awoodda qofkana way kobcisaa gaaskana hoos bay u dhigtaa qofku markaa wuxuu dareemi doonaa inuu dareemo relief iyo deganaansho iyo xasilooni waxa kale uu dareemayaa gaastii soo gacaysay ee caloosha nabarka ku abuureysay inay markaas ay istaagto oo boogtii danqanaysay ay danqashada ka samayso ay ka dhinto waa organic oo dabiiciga wax dhibaato ah oo qofka ay u geysanaysaa malaha kaliya marka laga yimaado haweeneyda uur kale oo aan runtii lagula talin laakiin oo markaas scientifically ama caafimaad ahaan markaynu u eegno haweeneyda uur kale lagulama taliyo inay isticmaasho dadka intooda kale way qaadan karaan oo way isticmaali karaan haweeneydu laakiin xilligaa waa iska dayn doontaa haddii Ilaahay ka dhigo marka laga yimaado markay umusho oo ay u fiican tahay umusha waxoogaa kadib markay umul baxdo way isticmaali kartaa waayo waxay kordhisaa caanaha naaska
ayay ka qayb qaadataa in haweeneyda u kordhiso. intaasu waa inta ugu muhiimsan. gaaska kaama wada eliminate garaynayso, macnaheedu kaamana wada bogsiinayso, ee waxay kuu samayn doontaa relief inuu dejiso oo gaaskii kaa yaraato, oo gaaskii aad la saaxiibto iyo xanuunkii gastritiska oo muddo aad la socoto oo aanu kuu kicin oo dhibtii iyo dhibaatadii ay kaa yaraato. arrintaas faa'iide naturalna way leedahay, awoodda immunity-ga qofka, difaaca qofka, waxaasoo dhanna waa u fiicantahay. arrintaa aad baynu ugula talinaynaa bulshadaynu jecelnahay. intaasaynu ku soo ururinaynaa oo clipka aynu ku soo koobaynaa. fadlan la sii wadaaga oo usii sheergaraya bulshada kale aynu iyagana jecelnayna kanaalka kusoo biiraan. idinkana mar labaad baynu rajaynaynaa nolol fiican iyo caafimaad taama iyo mustaqbal ifaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.